NFD oo ah dhulka Kenya xooga uga haysato dadka muslimiinta ah gaar ahaan agagaarka deegaan lagu magacaabo Yumbis oo hoostaga magaalada Garissa. mujaahidiintu qamiin ayay halkaa waxay u dhigeen ciidanka Kenya. qamiinka waxaa ku soo dhacay gaari ay leeyihiin booliska ciidanka Kenya. miina ay mujaahidiintu duugeen markii uu dul marayeen miinada ayaa gaariga la qarxay waana uu gadoomay. askartii saarayna wax dhintay wax dhaawacmay iyo wax argagaxay oo yaacay oo hawdka u kala cararay bay noqdeen. kadibna bursayn bay mujaahidiintu huwiyeen laakiin kuwooda baxsado cararay oo yaraa la gaari waa. mujaahidiintu bartoodii ayay ku sugnaadeen. waxaa soo gurmaday 4 gaari oo booliska Kenya ay leeyihiin ciidan saaran yahay ayagoo isla meeshii hadday mujaahidiintu falka ka fuliyeen waa ay ka tageen. goobta markii ay soo gaareen 4 gaari oo mujaahidiintu waxay ku wajaheen gadaalaha RBG galeeyaday ku ganeen. ilaahay fadliga 4 gaarina RBG-yadii ayaa haleelay oo 4 dab baa qabsaday. markii ciidankii saaraa marka rasaas ayaa mujaahidiinta ay huwiyeen ayaguna rasaas bay ku jawaabeen. muddo ayaa la isweydaarsaday rasaas kabacdina ilaahay fadligii waa ay jabeen booliskii ciidanka Kenya ahaa. goobtiina waxay uga tageen wixii askar ah maydahay iyo gaadiidkii agabkii ayay goobta uga carareen. goobtiina mujaahidiinta ayaa u haray. mujaahidiinta waxaa u suurta gashay marka 5 gaari kii hore miinadu la kacday 4 dambaba inay farxashaan wixii ka haro dab ay qabatiyaan halka ay ku burburiyaan. khasaaraha gaaray ciidanka gumaystayaasha ah oo gaalada ah inta mujaahidiintu arkeen ay isdul taageen 30 askari oo mayda oo saraakiil iyo isugu jiray askar ayay mujaahidiintu arkeen. waxaa kaloo la gubay 5 gaari saan sheegnayba oo baqaayaadkooduna dab la qabadsiiyey maadaama goobta mujaahidiintu u hareen. sidoo kale hubkii askartaasi ay weysay sodomeeyaha qoryo gacmeedyo iyo rasaas iyo lahaa iyo agab ciidanba gacanta mujaahidiinta ayuu ku dhaca. ilaahay baa ku mahadsan. sida runtiina dhacdadaanu waxaa ka horreeyey inay mujaahidiintu howlgal ka wadeen agagaarahaas dhammaan inay howlgallo isku mid ay ka wadeen gobolka NFD hadday noqoto xeebta.